السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. سورة أصحاب تغالق بارك الله فيكم. ولالذين وحي نقد البدين إن نسوق هذا النوه إمام كمده إمامية مسجد الله الحرام وشيخ عبد الله الجهني إن شاء الله تعالى وحي نسوق هذا دونا تاريخ دي سوكوبا. شيخ وحيابها عجيب كاولي وحا كمده إنه تجيي أفرت مساجد وعنسا عالم الإسلامي، ومسجد القبلتين هي مسجد القبى، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هي مسجد الله الحرام. أفرت مساجد به شيخ وحاو كنغضي إمام. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. شيخ مقعي سودا ميسترا وعبد الله بن عود بن فهد الظبيان الجهني وحاول الشيء سدحية طبنكي جانوري كون سقال بقول إيا لحية ضباطنكي وحاول كل شيء مقالده مدينة المنورة حافظ الله يلهدو الوبرة وهل كيلومتر يبرو شرته مسجد كالنبي عليه الصلاة والسلام. شيخ وحاول كسو جيدا قبيلة الله يلهدو الجهينة وأحمر كاسي قبيلة فعوين oo taariikh dheer leh. waxa ay markaasi soo islaameen sanadkii labaad ee hijriga. wafti ka socda qabiilada Juhayna ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimid iyagoo markaasi diinta islaamka soo galay, sidoo kalena nusrada rasuulka calayhi salaatu wasalaam mar walba ka qayb qaatay. sheekhu waxa uu xifdiga quraanka bilaabay isagoo ay daadiisu yar tahay. aabihii ayaa waxa uu kaxeeyay xalaqada xifdiga quraanka kariimka ah ee masjidka la yiraahdo Masjidul Ashraf oo markaasi uu macallin ka ahaa sheekh لورنجري محمد فاروق الراعي. هذا المسجد المعروف مسجد الأشراف في الحرة الغربية. هذا المسجد اللي تعلم فيه القرآن فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الذبياني الجهني. sheekhu halkaasi ayuu xifdiga quraanka kariimka ku tacalluqay oo uu qalbigiisu ku dhagay. marka uu ka soo rawaxo xalaqada xifdiga quraanka kariimka ah ayaa waxa uu arki jiray dhalinyarta ay isku da'da ahaayeen oo markaasi kubad ciyaaraya. markaasi ayuu cadhoon jiray, isagoo cadhaysan ayuu guriga ku noqon jiray. hooyadii ayaa ku qaabili jirtay waji furfuran oo markaasi soo dhaweyn jirtay, niyadana u dhisi jirtay. maalinka labaadna waxa ay u keeni jirtay markaasi waxa uu ku farxo. aabihii wuxuu ahaa mid aan ogolayn inuu xalaqada xifdiga quraanka kariimka ka maqnaado, sidoo kalena waa uu ku mutaabacayn jiray oo waa uu ka warhayn jiray. hooyadii waxay ahayd mid habeenkii ka dhageysata markaasi xifdigiisa, waxaanay ku tirtirsiin jirtay oo ay ku dhiiri gelin jirtay inuu quraanka habeenkii ku tukado salaatuleyl. waxaanay ku odhan jirtay markaasi salaatuleylka salaada aad habeenkii quraanka kariimka ku tukataa waxay xoojinaysaa xifdigaaga. sidoo kale salaadaha intay gacanta qabato ayaa ay masaajidka geyn jirtay. markuu masaajidka galo ayay ka soo noqon jirtay, taasi oo ku tusinaysa isagoo ay daadiisu yar tahay ayay hooyadii ku barbaarisay xifdiga quraanka kariimka ah. sheekhu isagoo macallinkiisii ka dhigtay 27 juz ayaa waxa uu soo baxay markaasi macallinka safar waxbarasho oo markaasi uu u baxay. kadibna waxa uu u soo wareegay مسجد كلا يلاهدو مسجد الإحساء حلقة حفظ قرآن كريم كسعتي وحانو كدميي انتي قرآن وهر سنيد وحانا مركز سودي لبا معلن أو لكالورنشري شيخ أحمد الحامدي يا شيخ بدر الحجيري. شيخ وحاو حفظ قرآن كريم كدميي يساقو أيدادي سوتهي سدحية طبنجر دوكسي دحية مدسر. شيخ وحاو كدكتي محد كهوستغا جامعة الإسلامية. شيخ مركو حفظ قرآن كريم كدميي waxa uu toos u tagay masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo markaasi ku biiray xalaqada markaasi ugu qaadanayo ijaazada quraanka kariimka ah. waxaanu ijaazada sanadka ka qaatay sheekha la yiraahdo Sheekh Ibrahim al-Akhdar. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن نلتقي جميعا
قرأ عليه القرآن كله من أوله إلى آخره. شيخ جامعة وحاو قلي جامعة الإسلامية كتها لمقالة مدينة وحانو كقلي مركزي كلية علوم القرآن. شيخ وحاو معلن كالنقضي مدرسة حفظ القرآن الكريم كأبي بن كعب haddana waxa uu u wareegay jaamacadda Qura isagoo markii dambana ka mid noqday gudida waxbarashada ee jaamacadda Qura. sidoo kale jaamacadaasi waxa uu ka qaatay shahaadadiisa doctora isagoo ku qaatay usul tafsiir. sidoo kale sheekhu waxa uu ka qayb galay tartamo ay qabtaan jamciyada khayriya ee wadanka Sacuudiga waxaana uu galay markaasi kaalinta koobaad. sidoo kale waxa uu ka qayb galay tartanka boqor Cabdulaziz ee loo qabto markaasi dawladaha isagoo ka socda wadanka Sacuudiga waxa uu sheekhu galay kaalinta koobaad. sidoo kale sheekhu waxa uu imaam ka noqday Masjidul Qiblatayn waa masaajidka markaasi loo bixiyay Masjidul Qiblatayn masaajidkii labada qiblood waxaana loogu bixiyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo salaad duhur ku tukanaya labadii ragcadood ee hore markuu tukaday ayaa waxa ku soo degtay markaasi aayadii amreysay inuu Masjidullahi al-Haram u jeesto oo uu ka jeesto markaasi Masjidul Aqsa. sida awgeed ayaa masaajidkaasi loogu bixiyay Masjidul Qiblatayn. sidoo kale sheekhu waxa uu imaam ka noqday masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu imaam ka ahaa muddo 2 sanadood isagoo ay daadiisu tahay 22 sanadood 1998 إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. sidoo kale sheekhu waxa uu imaam ka noqday Masjidu Quba waxa uu imaam ka ahaa muddo 4 sanadood 2005 sheekha waxa loogu yeeray inuu imaam ka noqdo Masjidullahi al-Haram oo markaasi uu tujiyo salaada taraawiixda iyo salaada tahajjudka. muddo 3 sano ayuu markaasi sidaas ku waday oo markaasi uu sheekhu ahaa imaamiyada loo yeero markay bisha Ramadaan soo gasho ee tujiye markaasi salaada taraawiix Jamaadul Aakhir 1428 wa 2008 sheekha waxa ay boqortooyada Sacuudiga u dooratay inuu ka mid noqdo imaamiyada rasmiga ah ee tujinaya Masjidullahi al-Haram ilaa maantana waxa uu ka mid yahay imaamiyada rasmiga ah ee tujiya Masjidullahi al-Haram. sheekhu runtii waa mid codkiisa aad loo jecel yahay oo codkiisa uu macaan yahay sidoo kale ay qiraa'adiisu markaasi ku saameynayso ay qalbigaaga taabanayso. ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha xifdiyo cimrigana ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha u dheereeyo inagana hay naga dhigo min ahli al-Qur'an kuwa quraanka markaasi xifdiya oo markaasi ku dadaala. wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.